كورن صباح والبا مركا aad soo kacdo hadii lagu yiraahdo waa inaad cunto laba raax طبعا way adag tahay suureysashada cunitaanka xayawaanka noocaas oo kala waliba sida u eg laakiin waxaad ka warantaa hadii lagu oran lahaa waa khasab inaad cunto haday markaa khasab noqoto sababta keenaysa ayba noocay doonta ha ahaato waxaad ku bilaabi lahayd labadooda ka weyn ee foosha xun leh ee naftaadu diidayso fikradaas waa fikradda uu ka hadlayo buugeenan magaciisa la yiraahdo Eat That Frog waxaana qoray qoraagan caanka la yiraahdo Brian Tracy buugga ciwaanka noocan leh qoraagani wuxuu u qoray wuxuu eegay imisa fikradood oo waxa jira adduunka wax ku soo kordhin lahaa dhalinyaro ay aasaaseen laakiin se u fashilmay kaliyaata in dadkii waday ay dhexda kaga tageen ama ay ka caajiseen imisa mashruuc oo waxa jira inta la bilaabay meel fiican la soo gaarsiiyay wax fiicanna dadka anfici lahaa oo tari lahaa laakiin kaliyaata dadkii ama qofkii fikirka waday inta uu ka caajisay oo halka kaga tagay marka buugan ninkani waxa uu ku qoray 22 dariiq oo aad kaga hortagi karto caajiska iyo wahsiga iyo dibdhigashada sidoo kalena ku fudaydinaya inaad shaqooyinkaaga u qabato sida ugu fudud inta ugu badan aniga waxa ila soo xiriira dhalinyaro kala duwan oo aan asxaabnahay jecel inay soo galaan caalamka wax akhriska iyo la noolaashaha buugaagta laakiin se ilaa imika ay ku adag tahay inay sidaas oo kale ay sameeyaan marka waxaan ka fikiray bal wax ka caawin kara inay wax akhriyaan kadib waxa igu soo dhacay fikir ah inaynu soo qaadno mid ka mid ah buugaagtii anigu aan shakhsiyan soo akhriyay aad iyo aadna ii saameeyay kadibna aynu ka dhigno muuqaalo kooban buugina aan hoosta idin soo dhigo taasoo markaa inaga caawin doonta in uu qofku la qabsado wax akhriskii haddii markaa weli aanad bilaabin wax akhriska oo uu kugu adag yahay waxaan samayn doonaa challenge 22 maalmood oo challenge maalin walba waxa aan samayn doonaa buuggan imika horteena yaala oo anigu aan si gaar ah idinku soo xulay aanan hubo inuu noloshiina wax ka bedeli doono ayaynu soo qaadi doonaa kadibna waxa aynu sameynaa 22 mawduucba waxoogaa sharax kooban iyo faahfaahin ayaynu ka bixin doonaa 5 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo inta ugu dhaxaysa marka waxa maskaxda ku haya in hadii qofku waxa la markuu wax akhriska bilaabayo waxa lagu yiraahdaa 10 daqiiqo meelaha ku bilow wax akhriska laakiin hadii naftii aad ku kari weyday 10 daqiiqo bal waxaad isku daydaa dhinaca kale u rogo in 10 daqiiqo oo daawasho aad samayso waxay ka dhigan tahay buugyo kale inaad akhriyayso haddii markaa fikradaasi ay ina cajabiso insha Allah bilaha kalena waxaynu samayn doonaa inaynu buug kale oo saameyn la soo qaadno kadibna aynu fikirka aynu halkaa ka sii wadno marka waxaan doonayaa maanta waa maalintii koobaad haddii ilaahayna gaarsiiyo waxa aan rabaa dadkii ila geli lahaa challenge-ka buugga hoostaan idiin soo dhigayaa waa download garaysanaysaa soo download garayso kii soo iibsan karaya haystaana waa halkeeda kii kalena isagoo free softiga ha soo download garaysto maalin walba saacadda Afrikada bari marka ay tahay 1:00 duhurnimo ayaynu soo gelin doonaa 22 mawduuc maalinba mawduuc ayaynu ka hadli doonaa waxaan soo dhigi doonaa insha Allah YouTube-keena waxa ku qoran Dr. Cabdishakuur Aare waxaan jecelahay haddii aanad ku jirin inaad ka mid noqoto dadka YouTube-keena ku soo biira insha Allah waxa aan rajaynayaa in intiina muuqaalka maanta daawanaysaay maalinka uu challenge-kaasi u dhamaado oo aynu buugga dhamayno in aad ku soo qori doontaan commentiga challenge-kii waa dhan waa iga dhamaaday maanta waxaad ku soo qoraysaa qofkii diyaaro accept waan aqbalay maalinkeenu dhamayna haddii ilaahay ina gaarsiiyo bishan imika aynu ku jirna September inta ka hadhay baynu wadi doonaa haddii adigoo aad muuqaalkan daawanayso xilligan aanan ahayna maalinkaas ku bilaabmaya muuqaalkani adiga ku soo gaaro 22 maalmood kadibna waynu dhamaynaynaa sababtan 22 maalmood u dooranay waxa weeyaan daraasado badan ayaa waxay cadeynayaan in qofku muddada uu isku bedeli karo ee uu dhaqan cusub kula qabsan karo ay tahay 22 maalmood marka waxaynu helay buug in anfaca oo fudud wax badanna aad ka faa'iideysaan oo nolosha isbedel ku keeni doona sida aniga waxay ka bedelay kumanaan qof oo kala duwan wuxuu ka bedelay mawduuc muhiim ka hadlaya at the same time dhinaca kalena 22 maalmoodba in la soconaya insha Allah maalinka berri aynu iskugu iman doonaa muuqaalkeennii koobaad waa mahadsantiin